telefishanka Ariel ayaa saaka u kuurgalay xaaladda Saleebaan Nuur Rooble oo muddo 10 sano ah u jiifay xanuunka faaliga oo ka asiibay qaarka dambe. Saleebaan ayaa waxa uu sheegay muddada 10 sano ahayd ee xanuunkani faaliga ahi uu ku dhuftay in aanu helin wax daryeel ah. Saleebaan sidoo kale waxa uu telefishanka Ariel u sheegay in dalka gudihiisa aan xanuunkiisa waxba lagaga qaban karin, isagoona dadka muslimiinta ee jecel khayrka ka dalbaday in ay soo caawiyaan. طبعا ها فالك بايا وانت فبقع توصلت صح مركع أمد الصوماليين ويوحي قلت لك كذا اللي قلت له ما يعوي ما تعلاي فبقع صار بوجه حتى عفادنا حنرك لنا وقلت ربين وحاول كعطرية تطويرها الصوماليات إسلامك ملي تغنب وحي قطر يا عوية ما تعالى صح عفتك وواحد سيئة halkeeba lagaga qaban karaa wax xanuunkaaga وأحبال لك بقى بقى حنوك البلد توبي بايلبان توبي lagaga qaban karaa يتبت iminka waxaan ku suganahay hooyad ka degantahay magaalada Burco muddada 10 sano ah ee xanuunka la jiiftay yaa hooygan kugu hayay هذا ما تفدر بالبيت في كوني يا دعنا الله يا حاجة سيدة تيسا يا هدية انت ما يصفو درم المملكة في مكة ودبي كان ما كان جفاي كون عقر كايو كون يشجع في ما جفي Saleebaan Nuur Rooble waxa uu walaalihiisa muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ka codsanaya inay soo caawiyaan si xanuunkiisa dabiib loogu helo. Wixii caawimo ah ee aad walaal u awoodo Saleebaan Nuur Rooble oo muddo 10 sano ah u jiifay xanuunka faaliga, fadlan ugu soo hagaaji telefoonada kaaga muuqda shaashada. Cabdillaahi Xudeyfi, telefishanka Ariel, Burco.